waxaan aragnay wadanka baahida uu qabo dayactir sax ah inuu helo parties original inay helaan dadka waayo wadanka waxaa aad u batay mobilada la tuurayo mobilada la tuurayana waxay dhibaato u leeyihiin biyaada waayo halka mobil la tuuro wuxuu ka dhib badan yahay in 86 kiilo oo qashin ah la daadiyo marka sababtaas darteed aan aragnay dadka oo mar walba mobil soo iibsanaya tuuraya mobil soo iibsanaya Europe keenaya in la sameeyo ama Dubai geenaya marka sidaas darteed waxaan go'aansanay in wadankii service uu keeno quality Europe ama Dubai laga raadi lahaa in aan keeno waxaan sameynay qiimeyn marka koowaad dadka ugu badan hadda waxay isticmaalaan mobilka average ugu badan haddii ay akhbaar daawanayaan haddii dad la xiriirayaan waxaa laga yaabaa qofkii inuu 2 mobil 3 mobil haysto baahida degdega ah ee jirta waxay ahayd mobilada laakiin qaybaha kale qorshaha way noogu jiraan in marba qayb ku soo darno baqa guud aan dirayno waxa waaye horta markii koowaad oo shaqada aan bilowna waxaan ogaanay dadka inay jecel yihiin wax raqiis inay helaan ganacsatadana waxay xoog saartay inay wax raqiis keenaan marka meesha waxa ka baxay quality-ga meesha ka baxay qofku wuxuu keenayaa tooshka guriga lagu iibsado oo $1 ah uu soo iibsanaa qofka 2 maalin oo isticmaal ka baad uu tuuraya marka anaga dadku waxaan dhihi lahayn meesha ay qiimaha jaban ay fiirinayaan inay fiiriyaan waxaan quality-gooda waayo shayga soo gadatid waa inuu weeraan 1 sano aad intifaasataa annagana waxaan u taaganahay ashyaada la soo gadanayo electronic noocyadooda kala duwan inaan annaga dayactirno marka qofku markuu shay iibsanayo ha weydiiyo qofku ka iibsanayo shayga ma la samayn karaa hadduu halaabo dib ma loo hagaajin karaa guarantee ma leeyahay tusaalahaan kale waxyaabaha hadda qorshaha noogu jira waxaa ka mid ah kambanida electroniga keena inaan service center u noqono haddii uu keeno makiinada biyaha lagu kululeeyo waxay leedahay adduunka oo dhan waxay leedahay service center la geeyo haddii halaabo marka waxaan ku dhiirigelinayn dadka bulshada inay quality-ga xoog saaraan aysan qiimaha xoog saarin